saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay 5 nin gaari iyo qaraxyo ay wateen oo ciidamada ammaanka gobolka Bari ku soo qabteen howlgal xoog leh ay wadeen labadii maalmood ee ugu dambeeyay kuwaas ay ku raad joogeen ciidamadu soo qabashada shakhsiyaadka iyo qaraxyada ay wateen taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay qaraxyadan loo qorsheeyay sidii looga fulin lahaa gudaha magaalada Boosaaso halkan waxaanu saxaafadda ugu yeernay saaka inaanu tusno alaabta halka taal oo xalay la soo qabtay oo ay soo qabteen ciidamada geesiyaasha aan habeenay maalin midna seexan iyo nimankii watay waad arkaysaan beelata miisaankeeda intay la egtahay waa 3 xabo xabadiiba waxa weeye ugu yaraan waa 60 kiilo weeye xabadiiba 60 kiilo marka la isku daro waa 180 kiilo waad arkaysaan culayska intay leegtahay kabihii baad aragtaan xargihii baad aragtaan waxaad aragtaan remoodiyadii waxaad aragtaan wax allaale ee wixii lagu hawlgalayay oo dhan waxa lagu talagalay in magaalada lagu rogo hadda baalkii process buu ku jira goobta waxa weeye magaalada gudaheeda laga qabtay markii ay soo galayeen magaalada xogtooda la hayay xalay maahan hameen hore naga fakadeen markay ka soo fuuleen meeshii la yiraahdo buunda chiefka baa la socday wadada Sodonka oo madaxtooyada horteeda madho iyo BSF dhexdooda madhay u leexdeen 3 digood baa lagu qabtay ay cararay halkaas lagu qabtay ilaahayna waa nagu guuleeyay shan gaarigaas iyo 5 nin ay wateen gaariga oo alaabtu saareyd iyo 5 qof ee hawsha waday weeye afar waxay soo galeen isla saacadaas magaalada soo galeen ugu horeysay midna waxa way magaalada joog jiray awal wuxuuna ka ahaa 2 bilood buu gaarigaas wati waana ninka hawsha waday oo fududeynay maalmihii ugu dambeeyay ciidamada ammaanka gobolka Bari iyo laamaha sirdoonka ayaa waday xaqiijinta ammaanka gobolka Bari Maxamuud Jamaal Maxamuud telefishinka caalamiga Hon Cable magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland.